And this is for people that have a headache. يعني qofka ma haduu madax xanuun hayo meeshan iyo madaxa la galaya imika ahaan qof baa ku jira deed ma taswiiri karno dhinaca kalena waa qolal kale oo yagna marka aad biyaha aad galaysid oo ku meerin kartid oo waa biyo moogtahay marka kulul oo dhulka hoosteeda ka soo baxaya xagga kalena waxay yadna ay tahay qof baa imika ku jira ma taswiiri karno sayidna waxay tahay qofka maxay dadka caga xanuun kale waa biyo marka hoosta ka soo baxaya oo cagahaaga dhex gelin kartid oo ku duugin kartid marka dad badan baa ku bogsaday biyahan kulul ee Ilaahay uu dhulka uu nooga soo saaray dhinacaana hadii aad ku qabatid kaamirada biyahan xagga saasay u socdaan marka xaggaas oo kale ka soo baxaan way socdaan beeraha lagu waraabiyaa bustaanada ay tagaan xaggan ku soo qabo maxaa ahayd dadka xaggan u soo caafimaadka tagay dadka u caafimaad yimid waxa la yiraahdaa Caasho Maxamuud Abubakar xageed ka timid waxaan ka yimid Hargeysa ka timid Hargeysa ka yimid halkan caafimaadkeedu u fiican yahay waxay leedahay dhowr ceel waxa way caafimaadkeedu aad iyo aad u fiican yahay imisa maalmood ba xaggan joogtaa waxaan joogaa ilaa 7 cisho 7 maalmood ba joogtaa ayaan joogaa caafimaadkaygu aad iyo aad lagu xanuunayo ruuxda xanuunada jirka xanuunayo dad meel walba nin walba xanuunayo aad iyo aad u fiican yahay marka saad maqlaysiin badeed meeshan biyahan qandaraas xitaa Hargeysa looga yimid meelo badan baa looga yimid meesha saag leeyahay meesha sulul la yiraahdo waxa looga yimid dhagax buur waxa looga yimid dhagax waxa looga yimid jigjiga waxa looga yimid afarta carro dhan waa looga yimid dhinaca guryaha hayla salaasay taariikhda miyaad tagteen oo wax ka soo eegtay ma waxa uu ka maana soo eegna halkan baan fadhinay laakiin waan arkaynaa insha Allah ma ma santahay